asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halkaad iga daawanaysaan ama ad igala socotaan waa youtube channelkayga iyo facebook pagekaygaba haddii aad ku cusub tahay channelka iyo pagekaba kusoo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran insha allah videogan ama muuqaalkan maanta waxaan maaragtay idinku tusi doonaa ama aan kaga hadli doonaa insha allah sida ay u xareysan doonaan dadka lamaanaha ah sidii aan video ka hor idinka ballan qaaday laba video inaan kasoo kala dhigi doono dadka lamaanaha ah oo aan caruurta haysanin iyo dadka lamaanaha ah ee caruurta haysto insha allah muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa dadka lamaanaha ah ee aan caruurta haysanin qaabkay u xareysan doonaan insha allah haddii aad tihiin lamaane midkiin uu maaragtay shahaado haysto waxaa laydin ogolyahay inaad hal mar xareysataan sababtoo ah qofka shahaado ugu yaraan high school waa inuu haysto haddii ka tusaale ahaan maaragtay saygaaga uu haysto shahaado heer jaamacadeed yacni shahaado high school adigana aadan haysanin saygagaad maaragtay kula xareysan kartaa haddii aad labadiinaba maaragtay shahaado ugu yaraan high school aad haysataanna laba jaanis ay noqonaa isagana adigu kugu xareysan karaa adigana isagaad ku xareysan kartaa marka insha allah maanta muuqaalkan aan maaragtay idinkugu soo gudbin doonaa maxuu ahaa haddii ilaa yidhaahdo isla socod wanaagsan insha allah marka ugu horeysa waxaan imaanaynaa google-ka kadib waxaan ku qoraynaa dv lottery markaa ku qorno pagekanuna keenayaa pagekan markuuna keeno waxaan ku dhufanaynaa midka ugu sareeya oo ah electronic diversity kadib pagekanuna keenayaa meeshaan begin entry waxaan ku dhufanaynaa begin entry markaa ku dhufano codekana maaragtay gelinaynaa haddii far yaryar ee tahay far yaryara ka dhigay haddii far waaweyn tahay far waaweyn haddii number ee tahane number ka dhigaysaa markaa gelisid insha allah wuxuu ku geenayaa meesha sheekada ay ka bilaabanayso soo marka maxaa la dhahaa tilmaamahaan raacaynaa last nameka waxaan ku bilaabaynaa qofka last namekiisa yacni magaca awowga first namekana waxaan ka dhigaynaa waa magacaaga koowaad waaye middle namekane waa magaca aabbaha so aadba maaragtay qofka aad ku hor bilaabaysid maaragtay haddii ninka uu yahay ama haddii ay maaragtay gabadha ay tahay waxaa gelinaysaa meeshaan pagekan ugu horeeyo marka kaba soo qaad haddii maaragtay wiilka uu shahaado haysto number 1 waxaa ka dhigaysaa qofka shahaadada haystan informationkiisa gelinaysaa hadba keenayna shahaadada haysta because qofka labaad shahaadi iyo waxaas lama weydiinayo markaa maaragtay buuxinaysaa isla socon insha allah isla arki doonaa meeshaan mail aa leenahay taariikhda dhalashada gelinaysaa waxaan waa tusaale ahaan idinku tusooyaa oo maaragtay si aad maaragtay ugu tusaale qaadataan magaalada uu qofka ku dhashana waxaa ka dhigaynaa Hargeysa maadaama kii hore Muqdisho ka dhignay kadibna meesha Soomaaliya ku buuxinay meeshaan ay waxay ku ahaanaysaa yeesteeda maadaama maaragtay Soomaaliya waa loo ogol yahay sawirka ku xigo sawirka labadeeda sawir le mar walba isticmaalaya because maaragtay sawir qof islaameed kale inaa isticmaala marabi marka labadeeda sawir isticmaalaa adi halkaas waxaa ka isticmaalaysaa sawirkaaga iyo sawirka xaajidaada ama adiga iyo sawirkaaga iyo sawirka xaajigaaga marka in case of meesha email addresska waa optionalka both meeshaan kaleeta xaafada magaalada maaragtay meeshaad degan tahay laamiga wadada ugu caansan ka dhigaynaa so meesha aqaana is xero awr xero awr street 10 ama 20 ama 30 waxaarad ka dhig citygana waxaan ka dhigaynaa Hargeysa districtiga ama stateka ama countigana waxaan ka dhigaynaa Maroodijeex ama waxaa ka dhigi kartaa waqooyi galbeed oo malaynaa inay tahay laakiin hadda waxay isticmaalaan Maroodijeexdaas ka dhigo haddii aad ku dhaqan tahay Hargeysa haddii aad maaragtay Gibiley ay joogtid Gibiley ka dhiganay haddii aad Burco joogtid waxaa ka dhiganaysaa I think awdal waa Boorama oo malaynaa yes awdal waa Boorame Burcana waa Togdheer ka dhigaya marka meeshaas
and then meeshaas Soomaaliya leedahay country where you live today Soomaaliya ka dhigay haddii aad Kenya ku nooshahay Kenya ka dhigay haddii aad maaragtay phone numberka optionalkaasaad maaragtay waxba ku qoraysa daarabtid oo qori kartaa balse ani tusaale ahaan ku siinoyaa oo maaragtay wax oo muhiim ma ahan inaa geliya hadda intana waxaan leenahay emailka gelinayna emailkaas iyo emailka meeshaan hoos aad qoraysid waa in islahaato labada marba waa in islahaato haddii kale hadhow kugu soo noqonaya oo maaragtay wuxuu ku leeyahay waxbaa khaladay marka education levelkan waxaa leenahay university degree haddii aad high school haystid high school ka dhig haddii aad master haystid master ka dhig haddii aad maaragtay kii haystidna kii ka dhig and then kadib meeshaan qodobka 13aad married aan leenahay and my spouse not a US citizen yani xaajigayga US citizen ma ahan ama green card ma haysto caruurtana waxaa leenahay 0 ilma maaragtay ma haysan haddii aad ilma haysatiin meeshaan numberska ilma bas insha Allah video ku xog aad ku tusi doonaa sida caruurta iyo dadka haysta ay ugu xareystaan continue markaa dhahdid meeshaan ay spouse-ka lagu weydiinaa only waxa kaliya lagu weydiinaa waxay tahay qofka marka maaragtay xaaskaaga ama xaajigaaga ku xareysanaysid qofka magaciisa dhalashadiisa male iyo female wuxuu yahay and city-ga ku dhashay qofkaas iyo muxuu ahaa wadanka ku dhashay iyo sawirka set email ma laga rabo wax kale ma laga rabo only intaas laga raba kaliya marka inta waxaan leenahay and then heblayo and then aadan iska dheh and then female dhalashada 01 taariikhda qofka dhashay oo saxan oo maaragtay haddii uu soo dhameeyay kadib maxaa la meeshaas intana Hargeysa la ka dhig intana Soomaaliya kadibna sawirkan keega la ku soo celinaa waxaan tusaale ahaan la idinku tusooyaa and then kadib waxaan leenahay continue markaa dhahdid wuxuu ku siinayaa informationkiyo maaragtay meesha aan wada gelinayo saxan inaa iska hubi informationkaneeto haddii wax ka khaldan yihiin hoos imaaw waxaad tiraahdaa go back to part 1 haddii qofka ugu horeeyay aragtid inaad wax ka bedeshid qofka labaad daartid inaad wax ka bedeshidna qofka labaad wax ka bedelaya leh kadibna submit leedahay and then waa kana confirmation numberka haddii labadiinaba aad haysataan shahaadooyin laba mar xareysan kartaan oo xaaska koo ka dhigay kadibna xaajigaaga page labaad ku buuxinay haddii aad maaragtay xaajigaaga u haystaan xaajigaaga number 1 ka dhigay adiga number 2 iska dhigaysid soo markaas ee waxa waa jaanis laba mar ah waxaan rajeynayaa in ay wada fahanteen confirmation numberkan meel dhigta primary yani maaragtay do not submit additional entry form with this person as a primary entrant haddii xaajigaaga ama maaragtay ama ku xareystay single-nimo married mar labaad ku xareysan karo yani qofkaas haduu mar page koowaad uu isku buuxiyo oo informationkiisa galiye mar kale page-kaas kuma buuxin kartid waa waxaan rajeynayaa in ay fahanteen su'aalaha soo weydiinaysan waxaa ka mid ah goormuu soo baxaya wuxuu soo baxayaa May 6 2023 insha Allah waa tahay waxaan rajeynayaa inaad maaragtay ka wada bogateen oo aad fahanteen haddii aad su'aal qabtid insha Allah commentiga noogu reeb haddii aad rabtid inaad ila hadashid insha Allah Instagram-kayga Abdallah Muhya igu qoran igala soo xiriir insha Allah muuqaalka xiga waxaan kusoo gudbin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo qaabka ay u xareysanayaan dadka lamaanaha ah ee caruurta haysta insha Allah waxaan wax dhib badan ma ahan dii maaragtay aad sida wax loo akhriyo aad qaanid waad fahmi kartaa oo maaragtay adoonan video ay fiirsanin horaa ka xareysan kartaa 10 maalmood kaliya ayaa ka dhiman DV lottery inuu xirmo yuusan ka xirmin nasiibkaaga tijaabi waa ogahay dad badan waxay sugayaan habeenka ugu dambeeyo in maaragtay ay xareystaan maadaama aan dhahay habeenka ugu dambeeyaan xareysta aniga markaa ii soo baxay muhiimadda waa inaad maaragtay wax saxan ah xareysatid ma ahan waqtiga xareynaysid wax saxan inaad xareysatid iyo nasiibka ku saacido insha Allah muuqaalka hadii halkan soo gaartay
muuqaalka maaragtay like saar, comment fiican oo qurux badan noo reeb. haddii aad janaalka ku cusub tahayna janaalka kusoo biir insha allah, oo ka mid noqo walaalaha igu xiran insha allah. aad baa idin salaamaya dhammaantiin, guula idin rajeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.